السلام عليكم سولو هذا أصحاب تقييمها بدن كل سولو هذا كورس كيني تحناها كويك بوك برنامج حسابات كيني أنو كوجد جرنا حنمرنا 10 كي أفريتمناد وأنو كويك دونو أبي بيريس قاب قلوب حيو بيلاشا أما لعجها دين تأخ اللي نقول هاي 10 كي كوري وحنك صوت برناي قاب كألاب لو طلبضه أما الله سميه purchase order alaabtaas oo aynu ka dalbanayno vendorka ama supplierka marka aynu ku xiranahay inagu oo ka soo diimanayna waxa aynu u baahanahay sidoo kale waxaan soo aragnay in alaabtaas marka ay noo timaado ay laba qaab inoogu imaan karto in la inoo keeno alaabtii oo la socdo biilkii iyo in la inoo keeno alaabtii oo uusan la socon waxa loo yaqaano wax biil ah marka waa receive inventory with bill iyo receive inventory without a bill hadaba haddii aan eegno lacagta lagu leeyahay ama accounts payable ku $740 ayaa lagu leeyahay markasta waxa muhiim ah la socodka dhaqaaqa company adigoo tooyay report company financial balance sheet standard kadibna soo eegaya guud ahaan dhaqaaqa ama xaaladda marka uu ku sugan yahay company-gaagu sidoo kale halkan waxa kala socon kartaa account balances ama xatii kartaa accountant charts of accounts halkan waan ka soo hadalnay wax badan khasnada waxa nagu jira 180 amal bank waxa nagu jira $1 daabshin waxa noo yaala $1 inventory-gina waa 2060 waxaan leeyahay inventory-gina $260 $740 na waa deynta leenagu leeyahay hadaba sidee $740 ka aynu u bixinaa ama aynu u beeri karaynaa marka la meel baad tagi kartaa inaad tagtid vendor kadibna aad tiraahdo maxay pay bills ima inaad tagtid home page kaaga kadibna aad dooratid pay bills markaan doorano halkan waxa ka soo baxaya biilasha marka inagu taagan tusaale ahaan Camil General Trading Company waxaan ugu leedahay $500 Somali General Trading Company waxaan ugu leeyahay $240 tusaale ahaan waxaan rabnaa in Camil aan lacagteeda siino Camil tigta ayaan saaraynaa kadibna waxaad leedahay pay selected bills marka sida caadiga waxaan samayn karanaa in halkan ugu hooseysa bartan aan ka dalbano akoonka marka lacagta aan ka saarno sidaan ognahay khasnadeena waxaan ugu jira 180 marka hadii imiga Camil aan $500 ayaan siinana waxa la gelinayaa $320 marka si aan u bedelno halkan ayaan farta gelinaynaa kadibna waxaan leenahay amal ayaan dooranaa amal lacag waxaan ugu soo hori doonaa waxa loo yaqaano markaan dalbano amal bank waxa ku jira $1 marka laga jiro $500 waxa soo haraya waxa loo yaqaano $500 kadibna halkan ayaan tigta saaraynaa automatically khasnada ama waxa loo yaqaano akoonka loo yaqaano amal bank waxaan ugu hari doonaa $500 kadibna waxaan leenahay pay selected bills kadibna waxaan leenahay done marka hadii aan eegno waxa lagu leeyahay $240 ka waxaan ugu leeyahay Somali General Trading Company mar laba ku laabanaa vendor kadibna waxaan leenahay pay bills markan waxaan doonaynaa in lacagtan $240 ka aynu wada bixin ee qayb kamid ah aynu bixino akoonkeena waxaan ugu haray $500 halkan ayaan tigta saaraynaa kadib halkan ay ku taalo amount to pay ayaan waxaan leenahay tusaale waxaan rabnaa bixin $200 aynu ugu taagnaato kadibna waxaan leenahay pay selected bills kadibna automatically waxaan leenahay done hadii aynu eegno deynta lagu leeyahay waa $200 marka deyntii ma noqdo bixinaysaa marna qayb kamid ah ayaad bixinaysaa hadaba 10 waa 10 aad u kooban aynu ku baranay biilashii ama lacagii inagu taagnaa in aynu beer gareyno oo aynu bixino halkana dib ayaan ka eegi doonaa interbills qaabka biilasha ama lacagaha marka aragtinaad tusaale kale layrka oo kale marka lagu soo dalaco oo kale tusaale kale qaabkaad u diiwaan gelin lahayd dib ayaan ka eegi doonaa mar walba muhiim ah inaad la socotid report company financial balance sheet standard halkan in aad mar walba aad la socotid dhaqaaqa company-gaaga hadaba inta ku kulmi doono 10 xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi